Barasabka gobolka Hawd Axmed Ciga Maxamed ayaa maanta xafiiskiisa shir kula yeeshay cuqaasha odayaasha iyo waxgaradka gobolka Hawd. Qaar ka mid ah cuqaasha iyo odayaasha iyo waxgaradka gobolka Hawd oo kulankaasi ka hadlay ayaa ballan qaaday inay la shaqeynayaan barasabka cusub ee gobolka Hawd. mudane gudoomiye waxaanu maanta kuugu nimid anagoo ah odayaashii gobolka Hawd, cuqaal iyo odayaal waaweyn oo ka tirsan gobolka Hawd. waxa aanu maanta kuugu nimid isbarasho guud inaynu isku barano maanta maadaama oo aad cusub tahay oo xilkana dhawaan lagu soo magacaabay. mudane gudoomiye Ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa inuu horta xilka Ilaahay uu kugu asturo oo aad noqotid barasab hore u socda oo wixii allaale wixii ay u baahan tahay degmadu ama gobolku u baahan yahay baahiya lamaystira oo u soo buuxiyo gobolka ayaanu Ilaahay horta ka baryaynaa inuu Ilaahay ka yeelo. waxaanu isugu nimid wax wanaagsan aakhiriya adduunkaba u wanaagsan inaanu isaga la shaqeyno oon wax la qabanno oo wixii u dhow ku abaanu la qabanno annaguna aanu daacad noqono. ka waa ku ballan qaadnay odayaashayada iyo cuqaashayadu iyo musheekhduba magaaladu sidaasay gobolka Hawd daacadu ugu yihiin. isaguna waa nin cusub oo waanu wada hadallayoo nin diiran oo daacada ayaa nooga muuqda uu yahay oo dibaba waanu isqaabil. gabagabadii shirkaasi waxaa hadalla mahadnaqa ka jeediyay barasabka gobolka Hawd Axmed Ciga Maxamed. cuqaasha iyo odayaasha iyo waayeelka kale ee shirka maanta halkan ugula qaatay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu shirkii ugu horeeyay odayaasha wada qaadano. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa subxaanahu wa tacaala inaanu noqon kii ugu dambeeyay ee uu shirarkeenu socon doonaan marka ka dambeeya. waxaan doonayaa insha Allah wax badan oo halkan baahiyaabaad ka sheegteen. dalku waa dalkeenii, madaxweynihii aynu dooranay baa madaxweyne ka. waxaan inii ballan qaadayaa wixii arrimaha halkan aad ku xusteen inaan ka howlgalo wixii macquul ay nooga suurtooba. wadankuu ballaadhan yahay, baahiyaha wadanka yaalaana way badan yihiin. anigoo afkii gobolka Hawd ku hadlaya insha Allahu tacaala inaan ka howlgalo oo aan meel kastoo ay inala gasho aan ka waraadino inagoo garbaha ka wada taagan. waxaad ballan qaadeen inkuna inay la shaqeyn doontaan. aad iyo aad baad ku mahadsantihiin. magaaladan Balgubadle amba gobolka Hawd taariikhda Soomaaliland meel adag bay kaga suntan tahay. mashruuca kaliya haday cuqaal tahay, waayeel tahay, dhalinyaro tahay inoogu weynay marka loo taagan yahay. aniguna aan in la jaan qaaday waxa weeye wadada waxa weeye mashruuca ugu weyn ee dawladda iyo shacabka iyo qurbo jooga dalka iyo caruurta malcaamadaha iyo iskuuladu ay ka qayb qaateen sidaan warka ku hayo inaynu tii dardar gelino oo ka dhigna hadaynu wada helo cid walba hay'adaha iyo cid kasta wax inoo wadaaba khasab weyn oo imanaya. wadadaasina waxaynu xoogaynu saarayna waynu ku dardar gelinayaa. anigu ka mid baanahay haddii contribution laga bixinayo iyo qaadhaan iyo haddii meel loola hadlayaba kooban ka ahay. Maxamed Jiciir Axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Balgubadle.